Soomaaliya iyo beesha caalamka ee ku saabsan hiigsiga cusub ee sanadka 2016 kulankaasi waxaa shir gudoomin doona madaxweynaha Soomaaliya waxaana uu imanayaa xilli ay xiisad siyaasadeed ka taagan tahay magaalada Muqdisho oo u dhaxaysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddaba waxaa shirkaasi jooga oo ka qayb galaya ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Nicholas K. Harun Macruuf ayaa wareystay warbixintan ayuuna nooga diyaariyay. shirkan Copenhagen ayaa dhacaya sanad kadib markii uu qabsoomay shirkii deeqda ballaaran lagu siiyay Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium sanadkii hore. dokumentiga ay wada saxiixdeen beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ayaa dhigayay in dawladdu ay fuliso hadafka 2016 oo ah xasilinta dalka, dhamaystirka dastuurka iyo nidaamyada kale ee dawliga. Ambassador Nick Kay waxa uu sheegay in shirkan Copenhagen uu fursad u yahay in la qiimeeyo qodobadii lagu guuleystay isla markaana la dardar geliyo waxa dhiman. isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa hadalkiisa ka mid ahaa. This is certainly not a pledging conference. This is taking stock of what has happened. waxa uu yiri kulankani ma aha mid dhaqaale lagu ururinayo. waa kulan lagu qaadaa dhigayo waxa ka dhaqan galay ballanqaadyadii loo sameeyay Soomaaliya waana muhiim inaan sii wadno kordhinta hufnaanta waxqabadka. dawladda Soomaaliya waxay u baahan tahay inay aragto waxa ay qabanayaan iyo halka uu ku baxayo dadaalka beesha caalamka. dhinaca kalena deeq-bixiyaashu waxay doonayaan ayuu yiri inay arkaan hab maamul maaliyadeed oo adag oo dawladda Soomaaliya ay yeelato iyo deeq-bixiyaashu inay kalsooni helaan si ay waddanka dhaqaale kale u galiyaan. waxa kaloon Ambassador Nick Kay weydiiyay in shirkan uu imaanayo xilli guulo laga sameeyay dhinaca amniga balse dhinaca siyaasadda ay xiisad culus ka soo kordhay magaalada Muqdisho kadib khilaafkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaana uu arrintaasi isagoo ka hadlayay uu yiri We should not lose sight of the fact that Somalia has made some great progress in the last couple of years. waxa uu yiri waa inaynaan meesha ka saarin in Soomaaliya ay horumar samaysay labadii sano ee la soo dhaafay haddii ay tahay dhinaca siyaasadda iyo weliba dhinaca amniga. sidaasi darteed shirkani waxa uu dhacaya ayuu yiri iyadoo horumar la sameeyay balse dhinaca kale waxa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho ay saameysay shirkan. wax qarsoon ma aha ayuu yiri wadamada ay saaxiibka yihiin Soomaaliya iyo beesha caalamku ay aad uga walaacsan yihiin in khilaafkan u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu curyaamiyay shaqadii dawladda waana muhiim ayuu yiri in arrintani ay xal u helaan waana arrin mudnaan u leh wadamada iskaashiga la leh Soomaaliya. waxa kale oo Ambassador Nicholas K aan weydiiyay doorka beesha caalamka iyo waxa ay ka qabteen khilaafkan. So far, the international community has been, I think, very united. waxa uu yiri haatan beesha caalamku aad ay uga midaysan yihiin arrintan. qaramada midoobay waxay si dhow ula shaqeynaysaa ayuu yiri wadamada iyo hay'adaha kale sida midowga Yurub, IGAD iyo midowga Afrika. waxaana aaminsanahay ayuu yiri inaan ka midaysanahay walaaca aan ka qabno saameynta uu khilaafkan ku yeelan karo horumarka dhismaha waddanka iyo nabadda iyo weliba hiigsiga 2016. waxa uu sheegay in Soomaaliya uusan waqti ka go'in. waxa uu yiri labada dhinac anagu midna ma raacayno dhinaca kaliya aan taageerayno waxa weeye ayuu yiri horumarka iyo in horumar degdeg ah laga sameeyo nabadda dhismaha dawladnimada. waxa kaliya aan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayuu yiri inay xaliyaan khilaafka sida ugu dhaqsaha badan iyaga oo eegaya danta ummadda Soomaaliyeed. waxa kaloon Ambassador Nicholas K wax ka weydiiyay sida la aaminsan yahay in beesha caalamku ay ka soo horjeedo mooshin ka dhan ah ra'iisul wasaaraha ayna doonayaan in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay si wada shaqeeyaan tan iyo sanadka 2016. waxaana uu ku jawaabay I think it's absolutely right that the preference would be unity, stability and delivery. waxa uu yiri waa sax waxa aan door bidayno waxa weeye midnimo, xasilooni iyo waxqabad. sababtu waxa weeye ayuu yiri waqti ma harin sida aan hadda ka hor aragnayna isbedel lagu sameeyo dawladda iyo ra'iisul wasaaruhu waxay qaadataa waan socota bilo oo ku saabsan dawladda cusub iyo kuraasta mana naga go'o ayuu yiri waqtigaasi. sidaasi darteed ayuu yiri iyadoo la eegayo hiigsiga sanadka 2016 xasilooni, midnimo iyo waxqabad ayaa xalka ugu wanaagsan. laakiin ayuu yiri sida cad hay'adihii dawladdu way dhisan yihiin ugu dambayna Soomaalida iyo dawladda federaalka iyo hay'adaheeda dawliga ayay u taalaa inay jawaab u helaan dhibaatadan. beesha caalamku sameesha kama saarayso xalka ay Soomaalidu gaadho laakiin waa inay ka warqabaan Soomaalidu walaac beesha caalamku ka qabto waqtiga iyo dardarta lumaysa. Harun Macruuf